السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت موضوعنا وحكو سابسن يهي talooyin ku saabsan dhaqaalaha marka maanta waxaan ka istaagnaa dhinaca ah kaydinta amba dhigaalka amba waxa afka qalaad lagu dhahdo saving bal haddaba sida dhigaal u samayn karaysaa weli waxaanu ka hadlaynaa qofka caadiga ah ee aan yacni kambanina ahayn dukaanna aan ahayn ee qofka mushaharka caadiga qaata bal siduu dhigaal u samayn karayaa marka waxaan kusoo bandhigaynaa fikrado tusaalo habab iyo odhaahyo ku saabsan mawduuca dhigaalka marka aynu bilowno saving amba dhigaal tallaabada ugu horreysa ay tahay inaad qaaddo haddaad doonayso inaad dhigaal samayso oo mushaharka wax ka dhigtood wax dhigaal samaysato waxa weeye inaad hortii samayso hadaf aad doonayso inaad xaqiijiso marka dhigaalka markaad samaynayso ka hor waxaad ka horreysiisaa inaad naftaada ku qanciso maxaad doonaysaa lacagta dhigayso inaad ku samayso tusaale ahaan oo kale inaad baabuur iibsato inaad safartood yacni dalxiis aado inaad guriga rinjiga ka bedasho inaad ganacsi furato taas waxay kuu fudaydinaysaa hadhow markaad lacagtii dhigayso inaad si fudud aad u dhigto waayo markaa waxaad leedahay hadaf laakiin markaad tiraahdo dhigaalun baan samaynaya ee aanad yacni go'aamin waxaad lacagta ku samayn doonto way kugu adkaanaysaa inaad iska jarto waxay naftu ku qancinaysaa maxaad lacagta ku samaynaysaa laakiin marka hore isku day inaad samayso hadaf kadibna aad u bilowdo inaad dhigaal samayso taas waxay kaa caawinaysaa dhigaalka waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeye iska fogee yacni dhigaalka amba khasnada yacni lacagtaad dhigayso ee dhigaalka ku ah ha ahaato mid ka fog tacaamulkaaga maalinlaha ah waayo si fudud baad haddii kale lacagtaad dhigta u isticmaali karaysaa markaa beryihii hore kale waxaa la adeegsan jiray khasnadaha iyo sanduuqyada gaarka ah baankood ka furato xisaabta dhigaalka ah bes yacni xisaabuhu isku dhex jiraan qaar waxaa jira dhigaal ah oo iyagoo dhigaal haddana isticmaali karayso markaas aad u adkayso inaad lacagta qaadato xataa qaar baa ay suurtagal ku tahay in bangiyada qaar kaa yeelaan in xataa adoo qof kula socdo mooye aan lacagta lagu siin karin marka taas waxay kaa caawinaysaa sidoo kale inaad saaxiibkaayo kale amba qof aad u qadariso amba waalidkaayo kale aad tiraahdo i ahay taasina waxay kaa caawinaysaa inaad lacagtii ku dhiiran kari weydo inaad hore usoo qaadato waayo qof haddaad aad isku qadarisaan lacagta u dhibato yacni waxay diinaysaa naftaada inay lacagta isticmaasho qodobka kale waxa weeye xadid dhigaalkaaga yacni intaad dhigaysaa yacni yaanay ahayn wax yacni ii sheeg cashwaa'iya amba yacni doorasho ku timaado intaa dhig intaa ka daa laakiin marka horeba waa inaad ku tala gashaa intee in leeg baad doonaysaa lacagta inaad ka dhigto tusaale ahaan oo kale ugu yaraan mushaharkaaga inaad 10% aad ka dhigta dhigaal inaad waxyaabaha dhacdhaca waxaan ka wadaa lacagta aan yacni sida tooska ah kusoo gelin tusaale ahaan oo kale gabaatiyadoo kale allahu mustacaan yacni arrimaha munaasibadahoo kale kugu soo gasha taana inaad inteeda badan aad dhigaal ka dhigto waayo noloshaadii kale waxaad ku dabaraysaa mushaharkaaga caadiga ahaa sidoo kale hab kale oo iyadana fiican oo dhigaalka ka caawinaysa jirto la yidhahdo siiro garaynta laba god amba hal godba tusaale ahaan oo kale mar walbaad guriga ka baxayso lacagtaad qaadanaysaad jeebka ku hayso inaad isku daydo lacagta iyadoo zero ah inaad guriga ka baxdo haddaad tusaale ahaan oo kale 120 sidato inaad 20 ka dhigto 100 aad guriga kala baxdo haddaad sidato yacni ii sheeg 149 oo kale inaad 9 ka dhigto ood 130 la baxdo waa hal god laba godna haddaad siiro garayn kartaan kaba wanaagsanba taasina waa arrin kale oo kaa caawinaysa dhigaalka xadid dhigaalkaaga arrinta saddexaad waxa weeye u sheeg yacni saaxiibada amba cid u sheeg dhigaalkaaga taas marka waxay kaa caawinaysaa qof haddaad u sheegto qofkii uu kugu dhiirigelinaya haddaad tiraa warnin inta yaran iska cunux ku neemaya hay niyo meel fiican baad marinaysaa yacni uu kugu dhiirigelinaya saaxiibka haddaad u sheegto dhigaalkii sidoo kale saaxiibka waxaad laga yaabaa inaad kuba tartantaanba dhigaalkii oo tiraa niyo anigu haddaan intaa dhigto bal keena intaa horgaadha tusaale ahaan oo kale sanadkan waxaan dhigayaa amba aan seef garaynaya oo kale $5,000 bal adigu keena 5,000 niyo keena iyo keena oo halkaa challenge-kaasi uu kaa caawiyo inaad dhigaal aad samayso qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsan waxa weeye inaad laba xisaabood furato mid ku dhigaalah iyo mid aad lively day-gaaga kula tacaamusho waayo mar waraad laba xisaabood leedahay wax way ku kala soocan yihiin marka aad iyo aad baan idin rajeynayna qodobadaas sida aan fiici doonaan waa idin soo koobay asalaamu calaykum